madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka ku nool magaalada Hargeysa waxa uu salaada ciida kula tukaday masjidka weyn ee Masjid Jaamaca ee magaalada Hargeysa waxaana salaadaasi ku wehelinaya xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ugu horreynna wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa halkaasi hadal ka jeediyay geestiisa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliland ku bogaadiyay Ciidul Fitri subhanahu wa ta'ala in sunu xariisano masaakiinta eegno ilaahay isku keen eegaya waa maalintii naxariista waa maalintii Ciidul Fitriga waa maalintii afurka afurinayo dadka masaakiinta la siinayay maxaan ku raadayay zakatul fitriga cidii bixisay zakatul fitrina waa maqbuula bixisa salaada ka dambeeyana sadaqay noqonaysaa zakatul fitri way iska bedelaysaa walaalayaal waxaan maanta u baahanahay in walaalowno ku midowno xaqqa sidaynu soonkii ugu midownay salaadii ugu midownay inaynu dalkeena iyo dadkeena aan ku midaysnaano wanaag iyo nabadgelyo iyo naxariis ilaahay waxaan ku rajaynaynaa ummadda islaamka oo dhan meel joogta oo nabad iyo barwaaqo iyo horumar dalkeena iyo dadkeena ilaahay waxaan uga baryaynaa nabad iyo barwaaqo iyo horumar in sanadkaas sanadkiisa raax dambe ilaahay nagu gaarsiiyo intaa kadib laba qodob walaalayaal waxaan isku dardaaraynaa oo naftu u baahan tahay oo ugu baahan tahay waa nabadana waxaa suul ka ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada Soomaaliland ay ku soo booqdeen shacabka kala duwan isagoona halkaasi midmid u salaamayay magacaygu waa Xasan Cali Xasan waxaan xagan ka salaamayaa aabahay hooyaday iyo bulshada ku dhaqan dalka Soomaaliland waxaan xagan ka salaamayaa Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak ciid mubaarak بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن لا هاي دمان شعب غير سوماليلاند دنيا المسلمين تا عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن سلام adigana waxaan ku leenahay ciid mubaarak aad ma diya ciid mubaarak baan leeyahay dhamaan ummadda muslimiinta magacaygu waa Yaasmin Xarir Ismaaciil waxaan leeyahay ilaahay naga aqbalo acmaashii aynu soo wadnay iyo soontii in ummadda shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan bahweynta reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak fitriga awgeed waxaan halkan hambaliyo uga diraya guud ahaan shucuubta islaamka gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland anoo ku hambaliyay munaasabadda Ciidul Fitriga waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadho bashbash iyo barwaaqo iyo guul buuxda waxaan aad iyo aad hambaliyo kale laabo u diraya ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada jiida hore ee xuduudaha xaqiijinaya ciidamada badda iyo ciidamada amniga magaalooyinka sugaya waxaan leeyahay idinkii xaasaskiinaba ciidan ciideeda ku gaadho bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay aan hambaliyay cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysa waxaan hambaliyo khaas u diraya waalidkayga aabahay iyo hooyaday iyo walaalahay magaalada ceergaabo ku ciiday iyo kuwa kale ummadda islaamka oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullaam waanta bixir waxa si gaar ah u salaamaya shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo joogan gudaha iyo dibadda waxa kale oo halka ka salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka saddexda golo qaran xisbiyada qaranka waan salaamay dadka islaamka meel kasta kala joogan madaxda qaranka dhammaan dalka islaamka oo dhan waxa si gaar ah u salaamaya hooyaday iyo aabahay macaan mid kasta oo maqalkayga muuqaalka garanaysa waan salaamay waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak anigu halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogaan si ahaan gaar ahaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan si ahaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaka halkan salaantii ciida kula qaadanay aniga xaaskayga qaaliga iyo labadeeda ciyaala maxamed daakir iyo munahodan iyo xaaskayga qaaliga Shaadiye Ismaaciil waxaan leeyahay halkan in ilaahay ciideeda haynagu gaarsiiyo sanadka soo socda insha Allah waa Idris Bershiya telefishinka Universal